أيها الأحبة الكرام وإن علمك الشرعي وإن قلوبك هذا أسوجيت وإن جعلاته وإن برت كتابك إلهي سبحانه وتعالى والرسالة من الله والرسالة أديك كقصعته أو أديك لغير ربا إن كقادته طريق أدمريس وإن النور كون نقض بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام إن شاء الله تعالى وحان سكرتاقي إن هدي إلهي إلهدو أوامرت إلهي سبحانه وتعالى وإن أمر شرعي تاسو واجب نقوه إن قادنو إلهي سبحانه وتعالى بشر كان ujeedaayo u abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala qaayo aada u weyn muhiimada uu ka leeyahayna mid aada u sarraysa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dhiibay oo maaragta xambaarsiiyey ammaano haqiila oo aada u culus ammaano culus ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu basharka u dhiibay ammaanadaa oy ka caajiseen wax alla wixii ka soo hadhay basharka oo dhan hadday samaawaadkii tahay hadday arradii tahay hadday buurihii tahay maxay tahay ammaanadaasi ayuha alaxibatu lkiraam waa ammaano aada iyo aada u culus waa ammaanada ay diideen samaawaadkii iyo arladii iyo buurihii ay diideen waa ammaanada cubuudiyada wey addoonnimada wey ammaanada addoonnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku addoonsaday addoommihiisa waa waajib ayay ku tahay inay la yimaadaan إلهي وحده سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنك ينسى وما أنا أبورين إلا عبادون مويان وحكالون أبورين مجرد إلهي سبحانه وتعالى وأمانة إلهي أصاري بشرك إلا ربينك سبحان بشرك أردن ولا صاري دونا معناتها دنبي قيامة وحانا لو يدين دونا أمانة دي مجوتين مسمى جودن إلهي وحده سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وان ويديني النبي الإله سبحانه وتعالى وان ويديني كوي الله دري يكوي الله دريبا والرسوشي يددك لبدب وان ويديني وحكى الإله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وحنكون دارنا يا ربي قاقوا وان ويدين دونا وان ويدين دونا دمانتود أجمعين دمانتود وان ويدينينا عما كانوا يعملوا وحي سميني الدنيا وحي مركي كسقنايين أوامرت الشرعية وحي كوبسانيسا وحي إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري أمر قؤن وجازم وواجب إلا سمي محايتها مركا واجباتك إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري إلا لي ما دوي وحاكلوا ماركتا أي كوبسانيسا أوامرتها الشرعيه وحي إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري أمر قؤن نهي وحي نقربي إن كفقان وهي إن كفقان ومحرماتك وحي إلهي سبحانه وتعالى وإن حرمي إن كفقان أي إلهي سبحانه وتعالى إن أمري وهي haddaba qofku ma garanaya wixii la amray iyo wixii la nahiyey talow sidoo ku garan kara dariiqa uu ku garanaya waxa weeye dariiqa inuu barto waa cilmi weey inuu aqoon yeesho sida daraadeed martabada cilmi waa martabada ugu sarreysa ee qofka laga rabo inuu barto sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu barto waa waajib ma aha wax sahlan مرتبة الأولى وي إن أدبرت شرعي المحاك واجبة أو لغار ربا محا لغار ريبي أو واجبة إن تكتكتو وإن تقرانيس ما ها إن مارك تخبد العشواك سعوت إن دلعان إن تكسعوتو ما ها عمل كات سمينيس وإن تقانو الدنيا دي السفر بات كتاي طبعا وحاندو جوكتا وما المها تكو جرتو امتحان كاس أما واتكو دعون أما واتكو قدبيون الدنيا دار الابتلاء ودارتي امتحان كوي هذا ما المها جوكتو وإن بارته محال لقولي هي محال سمارك تادلده
maxaa lagaa rabaa inaad ka tegto maxaa lagaa rabaa inaad la timaado waa inaad garato ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan ambi uu soo diray oo ilaahay ku soo khatimay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxaa ummaddan loogu soo diray inay ku daydaan oo ay qaataan dariiqii uu hogaaminayay uu tusay saxaabadii ridwaanullaahi calayhim ayuu nebigu faray sala allahu calayhi wasalam ka bacdina sidaasay nagu soo gaadhay jiilba jiil siduu soo gudbinayey maanta kutubtii oo jaahisa oo diyaarsan ayaa dhexdeenna taalla ma kala furraay ma akhrisanaa ma isweydiinaa maxaa waajib nagu ah maxaanse nagu ahayn ma isweydiinaa bal dib aan ugu noqonna markaa cilmigu inaad barato waa martabada koowaad wey waaye waxaana lagama maarmaana taa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu waajibiyey inaan la nimaadno waa inaan la helo niyo saxiixa niyo maaragtaas toosan oo saxiixa oo maaragtaa caafimaad qabto waa in la helo sidaa lagu heli dee cilmigaasaa lagu helaya in la barto si qofku u qaato awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu guto camalka saxiixa ah uu la yimaado waa inuu qaato nusuusta sharciga ah ee maaragtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey fadliga uu leeyahay cilmigu aad buu fara badan yahay waxaa ka mid a qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaad mooddaa inaa maaragta aayaddan markaad fiiriso siiqada ay u socoto inaan cid kaleba ilaahay ka baqin innamaa kelmadda aadaatulxasri baa la yidhaha way koobtay wax kaleba maahina cid kaleba haka maaragta haka eegine yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay ka baqa addoomihiisa kuwa culimada ah bimacnaa kuwa cilmiga le wey kuwa aqoonta leh kuwa garanaya shayga xaaraanta ka xalaasha ah waxa waajib loogu leeyahay kuwa garanaya waa kuwaas wey waxaa kaluu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaya fadliga uu leeyahay cilmigu hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin kuwa wax garanaya aqoonta leh ee cilmiga leh iyo kuwa aanan waxba garanaynin miyay sima yihiin jawaabtu waa may ma sidna qofku hadduu caamo yahay una waxba garanayn uu jaahil yahay qof aqoon le marra maa la garab dhigi maya wey la garab dhigi maayo waaya nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin waa xadiis maaragta mutafaqa qofka ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu fahamsiiyaa diinta ayuu ilaahay fahamsiiya subxaanahu wa tacaala markaa cilmigu waa martabada koowaad wey ee ugu horeysa waa martabada wax ka horeeya aanu jirin qofku hadduuna cilmi lahayn uu aqoon lahayn dee waxba ma qabanayo adduunyada markuu qofku ka shaqaysanayo shayga uu ku shaqaysanayo uu bartaa tababar buu ku soo qaataa uu ku soo darasiya sanawaad buu wax soo barta ka bacdi buu ku shaqo tegay bal waxaad heshaa dhakhtar halkaa fadhiyo oo ana soo marin dariiqii aqoonta maaragtaa dhakhtarnimada aan soo marin oo wax daweynaya balkaalay helada may jirtaa hadduu halkaa fadhiisto yidha dhakhtar baan hayso dadkun layn maayo dabcan haa bal waxaad soo heshaan qof aanan baran diyaaradda sida loo kiciyo diyaarad loo dhiiba may dhici kartaa waa maya waxaasoo dhan aqoonta sharcigu way ka wada sarraysaa ahmiyadda ay leedahayna way ka wada weynta waxan waa wasaa'il hadday dhakhtarnimo tahay hadday dirawalnimo tahay hadduu qaa'id diyaarad kaxaynaya yahay haddii maaragtaa qof macallin oo dad waxbaraya yahay waxaasoo dhan waa maaragtaa waxyaabaha adduunyadeenna iyo maaragta aan ku adeegsanayna un wey ama aqoonta cilmigu fi dunya waalaakhira waa waxa adiga ku anfacaya adduunyadii waxaad kaga leexan wixii maaragta sharku ku jiray iyo wixii dhibta kuu lahaa iyo wixii jaahilnimo adugu kici lahayd buu kaa leexinaya aqoonta sharcigu aakhiradana wuxuu kuu yahay kii aad ku badbaadaysa waayo camalkii aad samaysay ayaa wuxuu ahaa camal saxiixa wuxuu ahaa camal ilaahay raalli geliya subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye ayuha alaxibatu اlkiraam cilmigu waa martabada koowaad martabada labaad waa inuu qofku cilmiga jeclaado cilmigan waa inuu jecel cilmiga sharciga waa inuu jecelyahy waa inuu maaragta la yimaado niyo ku xidhan oo maaragta u hiloobo oo cilmigan aqoontan sharciga u baranayo waa inuu jecelyahy maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu addoonkiisa jecel yahay inuu jeclaado sharcigiisa
ayuu jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala taasina waa ta keensanaysa waxaad maaragtaa in sharciga qofku maaragtaa u jeclaado maxabada ilaahay baa keensanaysa ilaahay baa jecel ilaahay baa addoonkiisa la jecel in maaragtaa uu sharciga ilaahay jeclaado waxaa ku sugnaa xadiis saxiixa oo nebiga salى اllahu عalayhi wasalam laga wariy wuxuu yidhi man axaba lilaah qofka ilaahay dartii waxu jeclaada wa abqada lilaah ilaahay dartiina ugu cadhooda wa acdaa lilaah ilaahay dartiina wax u bixiya wa manaca lilaahi ilaahay dartiina u diida oo u manciya faqad istakmala aliimaana iimaankiisa uu dhammaystirtay iimaankiisu wuxuu noqday iimaan dhammaystiran ayuu noqday marka ayuha alaxibatu اlkiraam waa inaad cilmiga sharciga waa inaad quluubtaada u soo jeediso waa inaad jeclaato waa inaad barato kitaabka ilaahay subxaanaه wa taعala waa risaala min allah waa risaalo adiga kugu socota oo adiga lagaa raba inaad ka qaadato dariiqii aad maraysa waa inaad nuuru kuu noqdo waa inuu iftiin kuu noqdo waa inuu kugu hago halka ilaahay subxaanaه wa taعala uu jecel yahay martabada saddexaad waa camal qofku inuu camal la yimaado inuu shaqeeyo cilmigii buu bartay cilmigii sharcigii markuu barto dee mis garab dhigi waa inuu ku camal falo waa inuu camal fal la yimaado waayo maqsadka iyo ujeeddada laga leeyahay cilmigu waxa weeye waa camal in lagu camal falo qofku markuu baranayo cilmi ka mida culuntan caadiga dunyawiga ah muxuu u baranaya talo maskaxdiisu buu ku daalinaya muxuu kharashka ugu bixinaya muxuu waktiga ugu luminaya dee inuu maadayar kala soo baxo inuu ku shaqayso maalma yar adduunyada joogo inuu ku noolaado noloshiisa ku dabaro ayuu maaragta u baranaya soo ma kan marka maaragta guryaha dhisaya kan waddooyinka samaynaya ka baabuurta samaynaya ka diyaara waxaasoo dhan culuntaas ay ku samaynayaan marka ay baranayaan maxay u baranayaan maxay waktiga ugu luminayaan dabcan dee inuu ku noolaado haddii intuu wakti badan ku soo lumiyo iska fadhiisto isagaba iska day dadka farta ku soo fiqi ninkaasi dhakhtarnimuu bartay waa ka halkaa iska fadhi oo muxuu uga faa'idaystay waa doqoniimo waa lagu ceebay soo ma haddaba cilmiga sharciga marka qofku uu barto waa inuu ku camal falo waa inuu tadbiiqiyo oo marag camalkiisa uu la yimaado faa'iido male cilmi aanan camal la socon oon camalkiisa aanu maaragta ana samaynayn camalkii loogu talagal aana samayn camalka saalixuna wuxuu ka mid yahay iimaanka camal saalixoo toosanood samaysaa wuxuu ka mid yahay iimaanka ayuu ka mid yahay maxaa yeelay camalka wanaagsani wuxuu siyaadinayaa uu kordhinayaa iimaanka ayuu kordhinaya wuxuuna daliil u yahay ou caddaynaya qofkan iimaankiisu halka u gaadhsan yahay xasan albisri raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi ina aliimaana laysa bitaxalli walaa bitamani inama aliimaanu maa waqara fi اlqalbi wasadaqahu اlcamal iimaanku ma aha dhar la xidho waxaad xidhanaysa ma oo isku qurxinayso laysa aliimaanu bitaxalli walaa bitamani waxaad didiile iyo maaragtaa waan samayn doonaa waxaas ma ah inama aliimaanu in kale maana iimaanku maa waqara fi اlqalbi waa waxa qalbiga ku sugnaaday wasadaqahu اlcamal camalkiina u rumeeyey camalkiibuu qofku la yimid oo camalkiibuu sameeyey aayaadka ka warramaya tartiibta ay leeyihiin acmaasha la samey tartiibta ile way fara badan yihin qofku camalkan uu samaynayo ee uu la imanayo waxbaa ka ratibmaya waxbaa ka dhalanaya camalkaa waxbaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya dee meel buu u yaalla wuxuu yidhi maaragta ilaahay subxaanahu wa tacaala falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyuni jazaءa bima kaanuu yacmaluun naf ogi ma jirto waxa u qarsoon waxa loo qariyey oo indhaqabowsi ah waa camalkii ay samaynayeen oo maxay ka dhalatay jazaءan abaalmarin la abaalmarinaya bimaa yacmaluun waxay camal samaynayeen waxay ku camal falayeen loogu abaalmarinay martabada afraad waxa weeye waa ikhlaaska wey martabada afraad waa ikhlaas wax wey waad baratay aqoonta waad la timid sharcigii waanad jeclaatay waanad ku camal fashay
tan afraadna waa inaa ikhlaasu jiro maaragta camalkan aad samaynaysa waa inuu ilaahay darti kaaya waxa weeye ikhlaaska iyo muwaafaqada waa laba shardi oo camalka lagu aqbalayo taasaana waxaana ku tusinaya oo daliil u ah qowlka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu leeyahay wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaa lama amrin inay ilaahay caabudaan mooyaane wax kale lama amrin iyagoo u khaalis yeelaya camalka mukhlisiin iyagoo mukhlisiina iyagoo maaragta ikhlaas camalka ay samaynaya camal ikhlaasa uu yahay lahu diina diinkooda ay samaynaya mid ikhlaas ilaahay darti u yahay xunafaa diin kale oo baadil oo dhan ka leexday oo diintaa toosan u leexday nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam inama alacmaalu biالniyaat wax kaleba maahina acmaashu waa niyada wey wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastaana waxa uu leeyahay waxa uu niyeysto ayuu leeyahay xadiiska waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim haddaba ikhlaaska maxaa dhaawici kara waxyaaba dhaawacayaa jira ikhlaaska oo ikhlaasnimadii ka saaraya waxaa ka mida istus qofku inuu camalkan u sameeyo inay dadku arkaan ismaqashiin inuu dadka is yidha waxaasaan sameeya waxaasaan bixiyey maalin heblaayo waan soomaa wahaakada inuu dadka ismaqashiyo maaragta iyo inuu qofkani camalkan uu samaynayo ula jeeda keli haata bicamalihi dunya adduunyadiisa maaragta inuu kaga shaqaysto waxyaabahaasi waa qawaadixu alikhlaas ikhlaaska ayay dhaawacayaan oo maaragta ay baabiinayaan martabada shanaad waa inuu qofku ka digtoonaado waxyaabaha burinaya ficilkiisa waxyaabaha burinaya waa inuu ka fogaado waa waxyaabaha burinaya iimaanka oo kale liliimaani yuxbidu kulu camalin camilahu اlcabdu camal kastoo addoonku uu sameeyey wixii burinaya waa inuu iskaga fogaado addoonku wuxuu yihi ilaahay subxaanaه wa taعaalى waqadimna ilىa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaaءa manhuura waxay aayaddani tilmaamaysaa inaa ikhlaaskii ka maqan yahay camalka ikhlaas la-aan iyo niyo maaragta toosan aanay meesha jirin waqadim ay qasadnaa waxaan usoo qasdinay ilaa maa camiluu waxay camal sameeyeen baan u nimid camalkoodii adduunyada ay ku soo sameeyeen oo min camalin camaluuna wuxuu doonaba ahaada camal alla camalkii ay sameeyeen ayaan u nimid fajacalnaahu waxaan ka yeelnay habaa'an boodh manhuuran la firdhiyey bal hadda dambas hawada raaci muxuu noqon saasoo kale camalkiisii noqdo maxaa markaa sababay ikhlaas baan jirin haddaba istusidda wuxuu burinayaa camalkaaga saalixa ah taasoo qofka doonidiisa marka camalkan uu samaynayo inuu adduunyadan u maaragtaa kaga faa'iidaysto liqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam faman kaanat hijratuhu ilى اllahi wa rasuulihi fahijratuhu ilى اllahi wa rasuulihi qofka ilaahay dartii iyo rasuulkiisa u hijrooday hijradaasi ilaahay dartiisa u ahaatay ilaahay iyo rasuulkiisa dartooda ayay u ahaatay oo maaragta camalkooda waa camal wanaagsan waman kaanat hijratuhu lidunya qofka adduunyadiis maaragta hijradiisu ay tahay adduunyo u haajir yusiibaha uu helo aw imra'atan yankixuhaa ama haweeney u guursado fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisaas waxa uu haajiran wey bes wax kale ma hijradiisaas waxa uu haajiray uun bay noqonaysaa ayuha alaxibatu اlkiraam haddaba camalka wanaagsan camalka saalixe qofku la imanaya ee uu samaynaya waxa uu toosinayaa camalkiisii maaragta aakhirada bimacnaa cilmiga uu baranaya wuxuu toosinayaa aqoontii maaragta camalkiisii ilaahay dartii uu samaynayey ayuu hufaya uu toosinaya awaamirta ilaahayna subxaanaه wa tacaala sidaan tilmaannay waa awaamir qolka la amraya inuu la yimaado sida towxiidka iyo salaada iyo birulwaalideyn iyo wixii lamida inuu la yimaado qofku uu qaato ama inay ahaato awaamir la amraya inuu ka fogaado awaamir ijtinaabin
sida shirkigoo kale inuu iskaga fogaado istustuska inuu dadka istusa inuu iskaga fogaado inuu bidcada iyo macaasida iyo wixii la mida iskaga fogaado waxaa markaa addoonka ku waajiba 7 martabo ayaa camalkiisaas u maraya waa 7daan soo sheeg waa cilmiga oo u barto iyo maxabadiisa inuu jeclaado go-aan ay ka tahay maaragta ma aha maxabadu keli haatada waan jecelhuuna qofku maaragta quluubtii qalbigiina aanu jirin waaye inuu ku camal falo inuu ikhlaaska ku dadaalo oo ikhlaas la yimaado waa inuu camalkiisani waafaqsan yahay السنة النبوية سنة النبينا إنه وافقسيه سيدي لقى ربي وإنه ليمات وإنه كدكتون هذا وحكا عمل كيس بورينيا وإنه كدكتون هذا وإنه كدل سجن هذا ومرتبة الضبادي وإنه كس سجن هذا ثبات وليمات قفكو وعمل كاس وكس سجن هذا ومدبدب عنه نقن كل بمارك توجه عنه لإيمان منافق عنه نقن qofku inuu ku sugnaado iimaanka cala aliimaan walcamalu saalix waxa weeye waa madlabu kullu mu'minin qof kastaba waxa laga rabo weye qof kasta oo mu'mina waxa laga rabo weye waa inuu qofku ilaahay weydiisto in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sugo dariiqa toosan inuu ku sugo mar kasta waa inuu weydiisto maxaa yeelay quluubtu waxay ku jirtaa biyadi illaah ilaahay gacantiisa ayay quluubtu ku jirtaa يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا وقفك مؤمن كوحا لقربا إنه كد دالو على الثبات وإنه طريقة إخلاص كان وإنه هري ودك دقو ولي مادو محايا لي أبا المرينتو وحي نقونيسا مد وكوارو هديتهي نعمة إلهي سبحانه وتعالى أو كن نعمة استجنديسا أو كو أبال مريو وعمل كيسي الدنيا دا جسهد النقض أمس عذاب أي تهي وعمل كيسي الدنيا دا وكا أبال مريو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قفك النار لقفوغيو أي جنة لقليو وليباني الدنيا دون وحكا لما هنا وماركتا بربر يرو مالمها يري الدنيا ومتاع ووحي ماركتا الدنيا تكون دافيسو هداد ملايين أروريسو إيا هداد قوتال ضروري يقول هلايسو كل واتكبحون مالينو بدا الدنيا كتك وحنا علايسكو كويريها قفك ماركتا قوتال ضروري يقول هلايا إن نرشون ماركتا وحكو دابولا هيستا أياكا علايس ير قفك ملايين أروريي waayo isagu malihin cid kale iskale cid kale unbaa ka talin doonta waayo hadduu malaayiin bunuugta dhigay tolow cimrigiisuna u saamaxayaa inuu noolaado 200 sano inuu noolaado ma hayna qof 200 sano jiro maanta dhexdeena joogo dabcan ma jiro haddii qofku uu gaadho 100 baa lala yaaba 100 buu jiraa 105 buu jiraa 110 buu jiraa baa la yidhaha soo ma يعني وغريبته عمرك ومدن وحو بديه وبين 60 و70 وسيد النبي النوشي صلى الله عليه وسلم إنه نوابا كسي حق جرنايو حديد وقت النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يجيل كي عهد النبي النولا حديد بدي ماركتا عمر قودو إلى تدباتا يلي حد انت ودحي سوحا بافادو اسكا يرابا إنك ماركتا انت تدباتا قادابا اسكا يربا وعكس وحيابا بدن با اسبدلي waxyaabihii aan ku noolay nolosheennu ay ku nooleydeen cuntooyinkaan cunayna baa noqday cuntooyin dee maaragtaa aan la garanayn cuntaan caafimaadka laga cabanayo oo qofka maaragtaa imika halkaa inta fadhida haddii dib loo baadho inta macaan kale laga yaabaa inay badato inta dhiikar kale iska dah inta maaragtaa xanuuno kale ka cabanaysa dee waa sidaasun maxaa keenaya dee waa qofka oo maaragtaa cuntooyinkan cunayo iyo waxaan ku nool yahay iyo xarakaadka uu samaynayo iyo sida maaragta noloshiisa u dabarayo ayna ahayn mid miisaaman oo sidii loogu talagalay aanan ahayn maaha
وحوي النبي وحي نوشك صلى الله عليه وسلم وين لبوحي وحا ugu shar badan buu yiri caloosha ugu shar badan saddex waqti hadii ma aragta qofku iska dibiriyo cunto ka baadina uu seexdo maafimaad dadka sugaysa ilaahay dambigeena ha dhaafo dambiga waalidiinteena ha dhaafo ilaahay dariiqa xaq Allah inagu hanuuniyo wixii dhibana Allah inaga kor qaado sawsawda mar Allah ina hareer mariyo dambigeena iyo dambiga waalidiinteena Allah ha dhaafo inta xanuunsanaysa Allah caafiyo inta xanuunsanaysa Allah caafiyo inta inaga soo codsatayna u ducaynana ilaahay caafimaad ha siiyo inta inaga soo codsana ilaahay caafimaad ha siiyo inta ma aragtay dhibaato haysatana ilaahay dhibaatada ka kor qaado intii muraad khayr lana ilaahay muraadkeeda Allah u sahlo roobkana Allah inoo shubo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين